السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال waxaan waraysi kula yeelanaynaa xafiiskiisa gudoomiyihii hore jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Admiral Maxamed Cumar Ismaan kusoo dhawo gudoomiye waad mahadsan tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin hogaanka warfaafinta in mataqaana ay waraysi maanta halkan ugu leeyashaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waad mahadsantihiin gudoomiye su-aasha horeysaan ku weydiinayo muddadii dheereed halganka kusoo jirteen halgankii hubaysnaa ee soo wadeen muddadii dheereed waxyaabaha faa'iidada la oran karo ee ummadda macnaha la taaban karo hadda maxaa kamid ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدا أتشيكتي هلغن كمتدير بان لسوودي inkastoo halganku ahaa halgan qori isu dhiiba oo muddo badan ummadda Soomaalida ogaadeen ay halganka soo waday haddana halgankii ugu dambeeyay ee jawxa ay hogaaminaysay intii aan anigu xilkeeda hayay waxay ahayd 12 sanadood marxaladaas iyada markii halganka aanu bilaabaynay runtii halgan curdan oo markaa bilaabanaya ayuu ahaa in alla intii halgan u baahnaana wuu u baahnaa ama xagga halganka markii la yiraahdo ujeedada ugu weyn waxay ahayd markii halganka hab nabadeed waxba lagu waayo wuxuu ahaa halganku u qalab qaatay inuu hab dagaal ku raadiyo xornimadii ummadiisa inuu ku raadiyo marka halgan hubaysan waxa weeye waa halgan aad iyo aad u dhibadan oo hawlo aad iyo aad u fara badan u baahan hawlo abaabul u baahan hawlo mataqaana military iyo hubayn u baahan hawlo tababar u baahan hawlo midayn oo shacbigi iyo mataqaana ciidamadii oo la mideeyo u baahan waxyaabo fara badan buu runtii uu halganku u baahan yahay halganka noocaas oo kala halgamada noocaasi kaliihina way ka dhibadan yihiin dawladaha iyo waxyaabaha way ka dhibadan yihiin marka halgankaasi wuxuu ahaa marxalad dheer uu soo maray marxalad kastana waxa lahayd duruufteeda gaarka ayay lahayd ama xagga abaabulka bulshada ama xagga tirada ciidanka ama xagga tayada ama xagga tababarka marxalada kala duwan ayuu halganku soo maray marxalad walbana duruufteeda gaarka ayay lahayd waxa runtii iyadoo marxalad walba isbedelayay gumaysigii naga soo horjeeday ayaa mar walba isbedelayay oo mar walba wuxuu qorsheysanayay in uu halgankaas ay u suurowday inuu si dhib yar uu kaga rayn karayo ama uu ku dhamayn karayo waxaana u soo baxaysay xaqiiqadu inayna sidaa ahayn waxa u soo baxaysay maalin walba halgankii inuu sii kordhayo halgankii inuu aagag cusub ka sii bilaabanayo halgankii inuu mataqaana yoolkiisii mar walba dhinaca yoolkiisii iyo guushii mar walba dhinaceeda u sii socdo waxa u muuqatay in bulshaweyntii iyo ciidamadii mar walba ay isqabsanayaan oo isku soo dhaweynayaan saas daraadeed gumaysiga naftiisu marxalada fara badan ayuu soo maray oo mataqaana arrimaha halganka saas daraadeed halganku waqti dheer uu soo maray maraaxil kala duwan uu soo maray duruufaad adag oo kala duwan uu soo maray marka hase yeeshee halganku marra isma taagin mar walba duruufta ama marxalada uu markaa joogo wuxuu qorsheysanayay siduu يعني مدة أقصر رئيسة أما مدة جوش أقدو إنه كل دقائق يمر والبقول شيء سنة مركا وهاي حركة شوكته أو أن استاجين أو مر والب ماشى مركها لتاجين هاي لقشين يصيدي لوجا جود بلها أو مد كله أو مرحلة كله أو كهجاكسن أما كجول بدن سيدي لوجا لها المدة دheereed halganka ku soo jirteen ama aad adigu hogaaminaysay waxyaabihii caqabadaha ay idinka hor yimid gudoomiye ma noo sheegi kartaa sida aad la socoto runtii halganku waa caqabada socda sidiisaba dawlado ka waaweyn oo ka awood badan oo ka hub badan oo ka imkaaniyaad badan ayaad la dagaalamaysaa
oo aad doonayso inaad guula ka soo hoyso sidaas daraadeed waxaaba caqabada gumaysigan ku hortaagan iyo ciidamadiisa iyo qorshaha aad dejinaysa ee aad doonaysa inaad ka gudubto oo inaad guul gaadho aad doonayso waa caqabada joogta ayay mar walba ahayd waxaa caqabada mar walba ahaa yani shacbiga yagii oo aan diyaar markii hore u sii ahayn halganka noocaasa inuu galo shacbigii diyaarintiisii iyo habayntiisii iyo ka dhaadhicintiisa qadiyadda cusub ka dhaadhicintiisa yaa iyaduna runtii caqabad ahayd yani waxay ahayd caqabada aad iyo aad u adag baa mar walba naga hor imanayay xagga gumaysiga ciidamo fara badan oo noocyo kala duwan leh oo mar walba doonaya inay shacbiga iyo ciidamada jabhadaba baabi'iyaan yaa mar walba maalin walba naga hor imanayay shacbiga iyagu waxay ahayd shacbi arrintu ay ku cusub tahay ama shacbi mataqaanaa runtii markaas aan suurowda inuusan diyaaro wada ahayn adna aad ka doonayso inaad hawlgeliso oo gumaysigaa ballaaran inaad ka horgeyso shacbigii aad ka horgeyso marka caqabado fara badan oo aan kala go' lahayn caqabada dhaqaale xumaa jiray caqabada waxaa jira mataqaanaa duruuftiina haysatay oo jabhad markaa bilow ah oo yani wax asaas oo saldhig oo hore jabhad wax dawlado oo kaalmaynaya ayna jirin duruufta ay ku jirto jabhadu iyo yani dagaalka faraha badan ee ballaaran ay wado yani runtii caqabada joogta ay ahayd hawsha aanu ku jiro ee halganka naftiisa wuxuu ahaa caqabad joogta u ahaa marka aad iyo aad bay caqabadaha u badnaayeen maalin walbana maalinta ka dambaysa ee halganku sii bataba way sii badanayeen caqabaduhu mar walba way sii badanayeen waxyaabaha halganka muddadii dheerada halgan kusoo jirteen lagu xasuusto ee hadda xusi karto maxaa kamid halganku sidii aan sheegay waa intii halganku muddo dheer buu soo socday hase yeeshee intii uun yani jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ay hogaaminaysay ee marka intii aan anigu uun aan hogaanka u hayay jabhaddaas oo 21 ilaa 22 sanadooda runtii waxyaabo fara badan oo lagu xusuusto ayaa jira maxaa yeelay meel bannaan baanu ka bilownay halganka ama wax dad aad u yar iyo hub aad u yar iyo abaabul aan jirin iyo dadka oon arrintaa diyaar u ahayn yani meelo bannaan baanu ka bilowkaas baanu gaadhnay marka waxaa weeye marxalad aad iyo aad u adag bay ahayd inaad meel bannaan oo eber ah wax ka bilowdo ama hawl saas oo kale ah yani halgan markii aad bilaabayso waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa inaad ummadaada ka dhaadhiciso fikradda aad doonayso inaad fuliso inaad ummadaada ka dhaadhiciso yani ummadan aad leedahay ordaya oo dagaalka gala oo gumaysiga xooga badan iska celiya waa inaad hubayso oo aad hubkii ay kaga hortagi lahaayeen ama ay mataqaanaa gumaysiga ay iskaga caabin lahaayeen waa in aad hubka aad u hesho waa inaad dadka wacyi geliso oo bulshada iyo ciidankaba aad wacyi geliso waa inaad qadiyadooda ka dhaadhiciso waa inaad u sheegto waxaan kada ay u dhimanayaan naftooda u hurayaan in ay xaqoodii uu yahay dalkoodii uu yahay hantidoodii uu yahay inaad dadkaaga aad gaadhsiiso heer ay naftooda ay hurayaan naftii huraha ama ninka yani qoriga sida wuxuu la dagaalamayaa askari cadow ah oo ka hub badan oo ka facilities badan oo ka tira badan oo isla markaana wuxuu doonayaa inuu ka adkaado oo uu jabiyo oo uu mataqaanaa ku qasbo inuu xaqiisii ka soo ceshado marka waxay ahayd runtii hawl aad iyo aad u adag oo aan isu dhigmin duruufta aan ku bilownay halganka ahayd halgan hubaysan in dawladdii Afrika ugu ciidanka badnayd aanu kaga hortagno waxay ahayd arrin runtii aad iyo aad aan la filanayn ama dadku aynan u malaynayn in natiijo laga keeni karayo loo arkayay isagoo saas tahay dadka yagii yani
way ku qanacsanaayeen in ay gumaysiga Ethiopia inay iska elin karayaan mar hadday xaqlayaal iyagu yihiin mar hadda iyagu dal kale yihiin mar haddii gumaysigu dulmahayo inay iska elinayaan yay runtii ku qanceen wayna muujiyeen goobaha marka la isugu tago dagaalka marka la isugu tago waxaa inta badan dhici jirtay in yani naftuhuraha jabhadkiihi in uu kuwa artillery iyo hub iyo tank wata in uu wiil yaro qori AK wata in uu mantaqana kala hortago oo ay suurowdo inuu eriyo oo meesha goobta isagu hado taana waxa ahayd qanaacada uu qanacsan yahay in uu waxaan wixiisii u yahay oo xaqiisii yahay iyo ku qanacsanaa saas daraadeed geesi buu ahaa mintid buu ahaa kama uuna soo waabanaynin askariga qoriga weyn wata kama uuna soo waabanaynin inta badanna waxaa dhici jirtay markaa la ka hor yimaado inuu inta badan guusha isaga ay raaci jirtay naftii huraha qoriga yarka wata inay inta badan ay guusha isaga raaci jirtay saas daraadeed yani runtii naftooda hurayaashu waxay ahaayeen dad rumaysan qadiyadooda oo iimaan ka buuxo waxay ahaayeen dad rumaysan dalka inay iyagu leeyihiin waxay ahaayeen kuwa rumaysan gumaysiga inuu yimid oo dibadda ka yimid oo doonaya dalkoodii inuu qaato waxay rumaysnaayeen inay ka eryi karaan ama ay ka adkaan karayaan ayay rumaysnaayeen waxayna muujiyeen xaqiiqadu inay sidaa tahay bay muujiyeen inay ka adkaan karayaan bay muujiyeen si guudna way u muujiyeen goobaha dagaalka marka la isaga hor yimaado si gaargaarana way u muujiyeen marka ama dagaalada googooska oo habeenkii iyo maalintii iyo goobaha kala gedgedisan ka dhacaya runtii way muujiyeen inay guusha iyo ay soo hooyin karayaan askariga qoriga way wata ee taangiga wata inay ka adkaan karayaan iyagoo AK wata yay muujiyeen marka runtii guul aad iyo aad u ballaaran yay naftooda hurayaashu goob kasta oo dagaal ay ka soo hooyinayeen wayna ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin arrintan xisbinimo halganka nabadeed qaadaysaan guul intee leeg baad macnaha yaad filaysaan oo natiijo intee leeg hadda idin muuqatay idinka ka ururahan shacbiga Soomaalida ogaadeenaya waa shacbi muddo dheer halgan ku soo jiray halganka uu ku soo jiray halgan gobonnimo doon buu ahaa siyaasadii hadda waxaa la yiri nabadgeliyo in wax lagu raadiyo nabadgeliyadana waxay noqonaysaa runtii in hab urur siyaasi oo xisbi ah in wax lagu raadiyo ayay noqonaysaa marka haddii dhinacaas loo leexdo oo habka siyaasadda lagu raadinayo yoolkii leegsanaya lagu raadinayo waxa weeye in runtii uu arrintu badankeedu uu noqdo wada hadal uu noqdo dhinacan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya marra iyadu yoolka ka leexan mayso daawada wali fara kama qodne waraysigii aan la yeelanayna admiral maxamed cumar ismaan su'aasha kale aan gudoomiyaha weydiinayno gudoomiyihii hore jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxa weeye gudoomiye 2 toddobaad ka hor waxaad ku qabsateen shirweynihii afraad magaalada Goday hoggaan cusub baad ku dayrateen isbedel maxaa faa'iido la taaban karaa maxaa keenay xilligan inuu ku soo aado shirka waqtigiisa maadaama uu gaar horta urur baanu nahay ururkuna mar walba waxa weeye waa isbedel joogta ah mar walba isbedel joogta ah socda mar walba duruufta ururkaas waa la qiimeynayaa mar walba markii la qiimeeyo qiimeynta waxaa ka soo baxaya go'aamaan ka soo baxaya go'aamadaas la fulinayaa mar walba shirweynahan kada shirweynayaal kala hore waa shirweynihii afraad shirweynahan kada afraad marxalad runtii wuxuu ku soo aaday aad moodo inay kala guurtahay marxaladii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay dagaalkii hubaysnaa ay ku jirtay oo laga soo guuray oo hadda hab siyaasadeed in qadiyadda ogaadeenaya wax lagu xalliyo la doonayo iyo ku soo beegmay siyaasadii ururka waxba iskama bedelin
waa sideedii weeye qadiyadu waa sideedii ujeedadu waa sidii waxa weeye mar walba in ummadani ay xuquuqdeedii oo dhammaystiran ay hesho shacbiga Soomaaliyeed ogaadeen waa inuu xuquuqdiisi oo dhammaystiran uu helo wadada ugu fiican sidii aan sheegay waxa weeye wadadan habka nabadgelyada ee habkan ururka siyaasadda in mataqaana lagu xalliyo waa habka ugu wanaagsan weeye taasaana runtii ku shaqaynaynaa marka hadii mar ay tahay yani marxalado fara badan oo horena aanu soo maray hadda marxaladan waxa weeye gudoonkii hore ee muddada dheer soo hogaaminayay ummadda yani waxa la gartay in la bedelo oo gudoon cusub hadda la doorto hase yeeshee mabaadi'da asaasiga ah ururka waxba iskama bedelin istaraatiijiyadii ururka waxba iskama bedelin xeerka ururka waxba iskama bedelin barnaamijkiisii waxba iskama bedelin waxa uu isbedelay kaliya madaxdii baa isbedeshay madaxdii ayaa isbedeshay madaxdana waxa weeye de qorshihii un baa lagu soconayaa waxaan rajaynayaa marka madaxda cusub ilaahay inuu hawsha u fududeeyo oo uu guul degdeg ilaahay inuu gaarsiiyo waxaan kula dardaarmahayaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya in aynan marra ka leexanin yoolkeedii inayna ka leexanin midnimadeedii inayna ka leexanin wada jirkii iyo mabaadi'deedii asaasiga ahayd marnaba inayna ka leexanin oo ay sidii ugu socoto waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa jawxu waxay halkan ku soo gaadhay muddadaa dheer wada shaqayntii iyo midnimadii iyo isku tiirsanaantii bay halkaa ku soo gaadhay waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa in jabhaddu ay si joogta oo sidii dhaqanka u ahayd inay la shaqeeyaan gudoonka cusub inay sidii ula shaqeeyaan sidii hore ee aynu hawlaha u wadna inay u wadaan sidii hore inay ula wada shaqeeyaan si wada jir iyo midnimo inay u wada shaqeeyaan yaan aad iyo aad ugu adkaynayaa inaynan marra ka leexanin yoolka asaasiga ahaana waan ku adkaynayaa waxaa noo fududaynaya inaanan yoolkayaga marraba ka leexanin waxaanu lahayn mar walba shirar joogta ah oo ama ha noqdo shirka go'aanka ururku wuxuu mar walba ahaa go'aan midaysan qof keligii go'aan qaata ma jirin gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya go'aan keligii ma qaadan jirin go'aanka jabhadda wuxuu ahaa ama mid lagu qaato guddi fulin ama mid wuxuu ahaa gole dhexe lagu qaato ama mid shirweyne lagu qaato ayuu ahaa dhammaan go'aamada jabhaddu go'aamo wada jir lagu qaato oo saa loo qaatay ahayd saas daraadeed khaladaad kugu yara khaladka ama go'aamada la gaadho ee khaladku ka soo baxo aad iyo aad buu u yaraa saas daraadeed aad baan ugu adkaynayaa jabhadda inay systemkoodii hore iyo nidaamkii hore in lagu socdo iyo wada shaqayntii iyo iskaashigii hore in lagu socdo in yani ciidamada iyo ururada bulshada iyo unugyada iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee jabhaddu inay sidoodii hore ay u wada shaqeeyaan go'aamadeenuna ay sidii hore ahaadaan oo go'aano collective ah oo wada jir lagu gaadhay inay ahaadaan gudoonka hadba la doortana in la isku wareejiyo oo saa gacan loo siiyo oo loola wada shaqeeyo sidaasaa guusha lagu gaarayaa waxaana rajaynayaa waxaan hubaa gudoomiyahani waa gudoomiye asaasayaashii jabhadda ayuu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii weligood halganka u soo shaqaynayay buu ka mid ahaa waa waaye arag aad iyo aad waaye aqoon-yahana waxaan hubaa inuu surmasaytadiisu ay aad iyo aad u yaraanayso ayaan hubaa marka waxa weeye in ay hay-adaha jabhadda ee kala duwan inay mar walba ay gacan siiyaan gudoomiyaha waxa weeye jabhaddu waa jabhad gaamurtay oo bisil runtii una hoggaansan go'aanka gudoonka mar walba aad iyo aad bay u hoggaansan yihiin marka waxa weeye in gudoonku mar walba iskaashi iyo wada shaqayn iyo go'aan midaysan oo si wada jira loo gaadho inuu dhaqanku ahaado yaan kula dardaarmahayaa saataana waxay keenaysaa guul runtii in la gaadho
oo habkii awal hore aynu ku soconay intii lagu socdo guul lagu gaaro yaan runtii rajadaydu ay tahay guul dhaqsa in la gaarayo yaan aad iyo aad ugu kalsoonahay saas daraadeed waxaan aad u adkaynayaa in hay-adaha kala duwan ee jabhadda oo guddoonka iyo hay-adaha kala duwan ee jabhaddu mar walba inay dhaqankoodii soo jireenka ahaa ee go-aankii collective-ka ahaa ee midaysan iyo wadajirkii iyo iskaashigii iyo mabaadi'dii asaasiga ahayd ee ururka ku dheganaanshaheeda in mar walba arrintaa lagu dheganaado yaan aad iyo aad ugula dardaarmahayaa jabhadda waxaanan jabhadda mar laba kale u sheegayaa in shacbigooda uu iyaga sugahayo shacbigu inuu iyaga sugahayo in yani tallaabo kasta oo la qaado shacbigu inuu qiimeynayo intayna jabhaddu qiimeynin in shacbigu qiimeynayo khalad kasta oo dhacana in shacbigu uu arkayo si aad u arkayo marka in ay jabhaddu aad iyo aad u feejignaato oo go'aamaday qaadanaysa ay ka feejignaato oo ay khalad ka ilaaliso midnimada ummadda inay ilaaliso oo jabhadda u horseedo mar walba inay u horseedaan midnimada jabhadda ay ka shaqeeyaan u horseedaan midnimada ummadana ay ilaaliyaan taasaan aad iyo aad ugula dardaarmahayaa jabhaddana guud ahaan waxaan kula dardaarmahayaa inay guddoonkooda ay gacan buuxda oo joogto ah siiyaan taas kaliya inaynu ku gaaraynaa guusha aynu ku gaaraynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaana inoo rajaynayaa inaynu guul degdega gaadhno khayr iyo xornimo iyo horumar inaynu ummaddeena gaadhsiino